السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتيدا وقلبي نور الجنة أو مانتي إذين وتألابتان إن واسدح حبوتون سا ujeedaan dad badanaa waxay iga soo codsadeen sida agoolka la isaga suuliyo si natural qal kaasina waa qalka cadaanka oo biyaha ahay waaye iyo hal xabo liin dhanaan waaye maasha Allah. marka waxaan rabnaa inaan sameysano tuunta hadda soo qabsaneynaa saddexda xabo tuunta waa shiidanayna hadba qofka tintiisa ee xajmigeedu ku xiran yahay iyo hadba sidoo agoolku ugu badan yahay tunta saas oo xoqoneynaa sababta waxaan ka rabnaa dheecaan fiican inaan ka helno ka rabnaa marka insha Allah asxaabteeda qaaliga waa ka xumahay gaabkii dheeraa dhexdeena soo galay oo sabab caafimaad darteeda alxamdulillah hadda waan roonahay ilaaha mahad iskale marka maasha Allah gabar igu qaali ah soo weydiisay idhaahda abaayse qasharada madaxa la isaga bixiyaa ama agoolka ama daandruufa ay dhibay marka fiidiyogana ugu soo talagalay ka faa'iideysta insha Allah hadda ka bacdi ma dhici doonto inaan kala maqnaano insha Allah waan soo dadaali doonaa fursadahayga iska yaryara marka insha Allah waa idin faa'iideyn doonaa idinkana aad ayaa idinkugu mahad celinayaa sida wanaaga iyo farxadda iyo kalsoonida leh ii dhiirigelisaan ii soo dhaweysaan ii sheeg gareysaan please hadaa nagu cusub tahay subscribe and share and like hadii hore noola joogtana shareta iyo like-ta nagu caawi maasha Allah. saana had saddexda xabo tuunta aheyd ku sameysanay saasay marka ay diyaar noogu tahay ka bacdi waxaan rabnaa inaan waxyaabaha dhidhinaa aan ku darsano duu ilaahay yiraahdo Allahumma salli ala Muhammad oo kana hadda liintii aan soo qaadanayna hal xabo liin oo weyn qof walba waxa waaye madaxiisa saa'og salka laga rabaa in laga mariyo tinta waahna tinta dheer ma ahan dhibaatada waxay ka jirto salka waaye marka uu agool jiro tinta maxaa la dhahaa lafta ay ku fadhiso maqaarkaas ayaa yeesti daandruufka inta badan waxaa sababa yeestiya sababo oo qolofta madaxa saas ay ugu badataa marka liintana maasha Allah aad ay ugu fiican tahay qolofta iyo ilaahay kuuma samadeeyay tuunkana sidoo kale tinta jajabka ka ilaalisaa flaaqada maasha Allah. hadda saasada saddex xabo tuun iyo hal xabo liin dhanaan waaye waa ka badsan kartaa waana ka yareysan kartaa tinta xajmigeeda ku xiran tahay tintaada xajmigeeda ku xiran tahay ama hadba sida uu kugu badan yahay agoolka ee ku xiran tahay qal waaye 2 qaado adaar 3 qaado 4 qaado hadba tintaada ku xiran tahay qalka cadaana aad ugu fiican oo biyaha maasha Allah si fiican isugu qas kadib waxaan rabnaa inaan ku darsano haduu ilaahay yiraahdo qof walba saliid uu jecel yahay ku darsan kara laakiin saliid looska jeclahay 2 qaado ilaa 3 qaado inaan ku daro hatta in loo badiyo saliid way iska fiican tahay ilaa 5 qaado in laga dhigo madaxa salkiisa kadib waxaan soo qaadanaynaa il yar oo kale waxaan rabnaa inaan qashirka dhan aan ka miirno oo dheecaanka bas waxaan u baahanahay dheecaanka waaye tinta oo waxaa la rabaa laakiin nadiif inaas qalleele inaas salka laga mariyo muddo nus saac bac lagu la xiro la sugo ka bacdi la iska dhaqo marka iska dhaqid kadib waxaa sameynaysaa saliid looska hadana aad tinta gudaheeda ku masaajeynay insha Allah. asxaabta Ramadaan waa soo dhow yahay ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo qof walba qashirka cabanaya ama daandruuf ama agool tima googo aad ay u anfacaysaa insha Allah.
شاء الله وإذن أنفعي دونتا كدب حال غاربا إنا دانا سليد كلا قدرايا أنا حوغا إنا سليد كوباديا جعلهاي سليد لوس وايه سا أركيسان سيفي عن السوق قص إلا يسكن حقشو كدب حال راتنت اسكراب كذا إن لمريو ميلا تنت وحق وسمينيسا وكوكوسنيسا كدب سوفا سوق هذا تنت دحديدا مرينه تنت سالكيدا كروغي هورا دريميسا دب ملهن oo adkayso ilaa nus saac kadib kabacdi iska dhaq shaambo iskaga dhaq kadibna xamaam zayd ka daba mari markay qalajisid kadib oo nadiifisid biyo raacisid saliidaada looska marso insha Allah natiijadana sida ugu dhaqsiyaha badan ku arki doontaa insha Allah asxaabteeda qaaliga aad ayaan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.